Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Halkaan naga daawanaysaan waa talooyinka shacabka Soomaaliyeed meel walba adduunka ku nooshiin soo dhawaada marka ayaantay dhibaato badan ayaa jirto oo maamul goboleedyada ay dhibaato ay ku wadaan dowladda dhexe marka maadaama ay saas tahay aniga waxaan dhihi lahay maamul goboleedyada ay hogaaminayaan Kismaayo unuka waxaan ku weynaa nabad maamulkaasna dhabar jab qarannimada Soomaaliyeed ka dhan ayuu wadaa iyo maamul goboleedyada kale oo kula bahoobeen haddii ay soo saari lahaayeen canshuurihii ay mideeyaan wada hadalladii oo ma arkinoo socday dastuurkii hadday dhihi lahaayeen waa ayeedsanahay horaha loo sii wado wax horumara maanayna ka hadlin waxay ka hadleen wax ummadda Soomaaliyeed kala geeyhayo oo ummadda Soomaaliyeed kala fogeyhayo waxay meesha isugu tageen ay ku baaqeen in ay nabaday doonaan galmudug waxay dhigata sharci Puntland waxay dhigata sharci Kismaayo waxay dhigata sharci koonfur galbeed waxay dhigata sharci Hirshabeelle waxay dhigata sharci okay sharciyadaasoo dhan oo la dhigtay in ma arkinoo lagu camal falaa la rabaa oo sharciyadaas la raaco sharciyadaasna ay ku heshiiyaan hadday iskhilaafaan ninkii oo sharciga ka boodane sharcigaas wuxuu ka qabo lala tiigsado mar haddiiba wax la kala qortay maadaama aan gobollada ay qaarkood ay mucaarad ka jiraan kuwaasoo kale waa la dhihi karaa laakiin wax horumar ay Soomaali ay horumar ugu tillaabsan karto maamul goboleedyada mayna ka hadlin waxay ka hadleen wax Soomaaliya qarannimadeeda dhabar jab ku ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa oo gobollada degan amba degan xataa caasimadda iyo meel walba oo Soomaaliya ka mid amba adduunka kale dhalinyarta joogto inaan ka bahowno wax qarannimada Soomaaliya lagu jibinayo waxaan ognahay maalinkii aan soo koray maanta inta ka dhaxle dowlad Soomaaliyeed oo quwad leh maanan arkin xabad iyo jajab iyo isdil wax badan baan soo abaabulnay wax badan ayaan ka qayb qaadanay haddaan dhalinyarada Soomaaliyeed tahay xumaan iyo wanaagba maanta laakiin looma baahna maanta waa fursaddii dhalinyarada waxaan dhihi lahay dhalinyarada Soomaaliyeed golaha baarlamaanka ku jirto dowladda ka shaqayso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku jiraan generaalada qalbiga fiyaabe tababarka ciidamada u wadaan waxaan idin dhihi lahay inaad si fiican dowladda aad u qabataan shaqadiina aad u gudataan gobollada ciidamada Soomaaliyeed oo joogaan waxaan dhihi lahay inaad dadkaada iyo dalkaada difaacda ayaad u dhimanaysaa bannaankana aad u taagan tahay nin wado Soomaaliya waxay hoos ku gali lahayd weligaa ha taageerin haddaa ciidan goboleed tahay amba ciidan dowladda dhexe daacad aad tahay dadkaada iyo bulshadaada mar walbaba cadaalad u ahaw jidka wanaagsanna ku hag haddii aad siyaasi Soomaaliyeed aad tahay oo daacad ana waxaan ku dhihi lahay weligaa xaq darraha raacin waxaan ogeynay dowladihii lagu soo dhisay bannaanka waxaa laga helayay 400 oo qofood oo sheeganayaan aqoon-yahano asiina u wadin jidka toosnay ayna wax ku wadin ay yihiin 300 ama 400 amba 1000 qofood oo aqoon-yahanada waxaa laga helayay dad 20 qofood aad dhamaynin oo Soomaaliya inay wax naqata daacad u waxay waayeen dadkaas daacadda 20kaas qofood in ay fursad u helaan inay jaaniska hogaaminta ay helaan intaan kale oo xumaado jiidayso dabcan dhibaatada ku wajahan waa dareemi kartaa
marka dhibaato badan ayaana soo martay dhalinyarada Soomaaliyeed, aqoon-yahanada Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliya. waxaan ka codsanayaa in ay ma arkino siyaasad hufan, ma arkino tartiib qoonyar u socodnimo. 20 qofood oo daacada ayaa waxaan ka guulaysata maanta kursigaad ku fadhidiin. 20 qofood oo daacadaha keentay. macquul ma aha maanta idinkoo ma arkino Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa 10 milyan ilaa 12 milyan oo qofood ayaa lagu qiyaasaa. haddii ay maantay ay ma arkino ay kala bartay 6 milyan ay tahay daacad ee dowladnimada Soomaaliya u tahay 600 oo ma arkino 6 milyan oo daacad aanan ahayn nagama badi karta maadaama 20 qofood oo xildhibaano oo daacad 400 ama 1000 qofood oo ma arkino jid xun ku hogaaminayaan Soomaaliya ay ka guuleysteen jidka maanta la taagan yahay lagu guuleysto. dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in aynan fiirin ma arkino maanta wixii taagan amba kursiga uu ku fadhiyo inuuna fiirin, laakiin uu fiiriyo mustaqbalka waxay Soomaaliya ay dhaxli lahayd. marka dowladda dhexe waxaan ugu baaqayaa isbiirid, qoonyarnimo u socod iyo jidka fiican inayna mar walbaba ka leexan. dadka aad u jeedaan golaha xildhibaanada ee baarlamaanka waxaa laga helaya 20 qofood amba 10 qofood oo daacad baarlamaan walbaan soo marno, wax walbaan soo marno. waxaa ka badiyeen 20 qofood inay dhasho maantay dadka aad u jeedaan xildhibaanada aad u jeedaan oo quwadda leh oo madaxweyne soo saaro oo baarlamaan soo saaro. golaha xildhibaanada qaarkood ay cadiifada ay ku tilmaamayaan ee baraha bulshada ay ku gudbinayaan. waxaan ugu baaqayaa in ay gudahooda ay ku xalliyaan xalka dastuurka, hay-adaha cadaaladda in si fiican loo soo saaro. muhiimna waxay u tahay in ciidamada xoogga Soomaaliyeed la dardar geliyo, ma arkino aynan ku sii baahan gobolada dalka. shacabka Soomaaliyeed oo rayidka waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan dhismaha iyo hor u socodka Soomaaliyeed. sababtoo ah cunugaada haddoonan aqoon helin, adiga aadan aqoon soo helin, abaaraha aad u jeedo, bahalka ku cunayo, dowladaha shisheeyo aad u jeedid, waxaa ka mas-uul ah dadka aad sacabka u tumaysid ay meesha ay kugu hagayaan aadan ogeyn. marka aad xisbi taageeraysid amba nin siyaasi aad taageeraysid waa inaad ka fiirsato waxa uu yahay. soo akhri marka hore, markaas kadib codkaada sii xisbiga aad siihayso amba ururka aad siihayso. sababtoo ah hadda waxaa ku soo xigaan dowladda ku xigta oo dooran doona inay xisbiyaal ay noo imaadaan oo ku loolana xisbiyaal. xisbiga aad dooranayso waa in aad akhrisaa, ogaataa wuxuu yahay. dalka dan ma uga jirto. hadday dalka iyo dadka ay dan uga jirto xisbigaas dooro haddii ay aaminsan tahay. haddii uu dhibaato badan keenana 4 sano oo soo socoto way dhammaahaysaa. kulleyti waa 4 sano xukuumad walbaba waxay jagada haayayso. marka muhiimadda waxa waaye iyo dad kale oo shisheeye u shaqeeyo weriyaal sheegahayo waxa ay daayinayaan ay ku tahay ummadda Soomaaliyeed sumcad xumo. weriyaasha Soomaaliyeed ha ka foojignaado ee ummadda Soomaaliyeed ay dhageysato inay wax xun ay baahiyaan. marka warbaahintan oo tirada badan leh, warbaahinta in tirada badan wax tarimaysa tayo gaaban laga dhigo. kuwa kale oo baraafatka oo warbaahinta ay qayaxnaadaan waxay tahay. laakiin muhiimadda waxa waaye shacabka Soomaaliyeed maanta waxaan taagannahay meel wax laga wadi karo, meel aan wax ku kala dooro karna ayaan joognaa. maanta waa guul. nin wax dilay inuu yimaado oo inta ka soo tago ma arkino
jinaala amba ceel wareegow inuu lug intaaga soo baxo inuu magaalada muqdisho oo wax ku sameeyo oo isku dayo isagoo baabuur ka cabsanaya inuu soo raaco dhaxna looga daba taga ma arkinoo xoogga ciidanka dalka Soomaaliyeed oo juqda usugana oo kula lugeeyo oo ka daba tago oo dharbaaxsho kulul ku dhiftaa ummadda Soomaaliyeed farxad u soo hiyata waa waxaan idin dhihi lahaa ciidamada sirdoonka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa inay gobol herbaadiye xataa qaataan si ay aga hortagaan dadka herbaadiyaha oo u soo wargeliyo dawladda dadkaas hubka haysto baabuurta ku socdaan qof la arkaba mas'uuliyad ayaa dalkaada iyo dadkaada uu ka saaran yahay macquul maahan al-shabaab oo waddanka dhan haysato ayaan ka guulaysanay xaqa ayaana ka guulaystay ma ahan in xoog looga guulaysto shacabka iyo aragtida ay dadka qabaan ayaad ka guulaysatay marka ummadda Soomaaliyeed waxaan idinkugu baaqayaa qof walba oo Soomaali ah wuxuu xil ka saaran yahay in uu dalkiisa oo nabadda uu horseedo wax walba dhibaatana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed booliska joogo meel walba taalo gobol hadaa joogto la wadaag qofka ka shakisa tag ninkan waa ka shakiyay dhibaatada intaas saas waay ninkan waa loo tagayaa waa la daba kacayaa si degan wuxuu yahana waa laga daba tagayaa ciidamada maaha ninka wax soo sheegay inay qalad u fahmaan ma arkinoo shacabka Soomaaliyeed waa inay la shaqeeyaan dawladana ay idin shaqeyso ciidanka gabiyahangeyga Soomaalida ku nool waxaa loo baahan yahay hufnaan aragti dheer in ciidanka qofka ciidan naqaayo heybada iyo karaamada uu sido waa dalka oo dhan waa inaad ogaataa in aad ciidan tahay ummadda Soomaaliyeedna aad u dhaxaysid inaad ogaataa ma ahan inaa wax walba aad ma arkinoo aad waxa iska tiraaho caadi waay masuq hadduu yahay haddii uu si kala yahay marka dawladdan waa mid ugu fiicneed ee ummadda Soomaaliyeed ee ku riyaaqdo waay aniga sida aaminsanahay maalinkan soo koraya maanta inta ugu dhaxayso waa dawladda igu rajo fiicneed dawladda ku xigta waxay dawladda Cabdiqaasim Salaad Xasan laakiin nasiib darro maanan ku guulaysanin hogaamiyo iyo siyaasiyiin badan oo aragtidan leh maanaynan jirin waxaan dhihi lahaa lamadii dawladood ugu fiicneed meel wax laga qaban kara joogta ayaa tihiin marka dadka Soomaaliyeed isu soo dhaweeya ma arkino nabadoonnada Soomaaliyeed ha kacaano hadda dihiyaana nabadda ma arkino cid walba oo Soomaaliya oo mas'uul oo meel isugu tagaysana dal wuxuu horumar ugu tilaabsan kara ayaa laga rabaa ma oga mahana inaad ataagtid ma ahan inaad qadiyada war kursigan waxaa haysaa 4 sano haddii aad tahay maamul goboleed 4 sano ayaa saaraanaysa kadib waad ka tagaysaa laakiin sumcadda Soomaaliyeed meel ha aga dhicin 4 sano. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.